waxaan jeclaan lahaa inaan warbaahinta ku soo dhaweeyo sheekheena Sheekh Cali Wajiis inuu mikrofoonka imaado. كولو ان waxaan jeclaan lahaa inaan is dhageysano si xafladda nagu qurux badnaato Sheekh Cali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم تهتدون. أيها المسلمون، أيها الإخوة الأحباب، أصحاب الرئاسة، قدوميها قلها شعبك، قدومي كحجانك كوبات، كحجانك رئيس الوزراء، رئيس وزراء هراء، غوبرنتورها قبل كوزير هذا، قدوميها برلمان هذا، إمام القبلة هذا، قلمدو يهر شبله، يدمان حلبان هذا، يمسؤولين تفرده، وحندكوا سلامنا سلامة إسلامك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعد آيات داس أنا أخرني في سورة آل عمران ولا ليال وحيك هذا ليس أرين مهمة أو أرين تعاو هل كان الله فديه أما حالة الصومالي ذا قيبة كمذا وحين الصومري يوحد تاجن الله وحنا نجوا ورمى يا وحا أمضوه أي عزق أي شرفت أي كهلان إن اجتهاي مدني ماذا هي اسكدوم نذا waxa kaliya oo ummaduhu ay kormar ku gaaraan waxa waaye inay mabaadiida iyo qawaaniinta iyo nidaamyada ay haystaan ay ayagoo fulinaya ay ku midoobaan sidaas ayaana lagu dhisaa xadaaradaha iyo dawladaha walidaalika dawladda islaamka ugu horeysay oo nabigu sallallahu alayhi wasallam oo yagleelay ayaa waxa mabda looga dhigay aayadaas midnimada la yiraahdo wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu marka xariga ilaahay wada qabsada xariga ilaahay waxa ka yaala waxay وتعالى دستورك هي مبادئ الإسلام كا إلهي سبحانه وتعالى سودجي وحد أكتين النبي صلى الله عليه وسلم إنه مدينة تذكي ودقنايا مسلمين يهودها وسمى حرر النظام محايل الدولة النمو وحي كل سنة حر النظام يهشيس بالشدة كالحياة مركا سداسا كانتي إن أيضا ولي دولة دي أيسن اسمن أو مقالده أي عصبتها هي الدولة ده مركا لا يقللها إن هرتهشيس بالشدة يحار الدستور لغو أساسه هذا بقى أيضا برلمان كالصوماليا أو يهي أضو دحات كالدولة ده أما هو أيضا مؤسسات كالدولة لماذا الصوماليا وإنه كقول يستي سنده اللي صار لعفي دوري طبنك أها أما اللواتنك سنة هذا كل دو لقصوا بالله بعرته إلى ما أنت برلمان كالتبرع دو فرديه إن أي مؤسسات كالدولة ده أي سي هفن أي دولة اسبدلها أي برلمان كأي بيسو أهايين isbedel kasta oo horumar ah waxa hooyo u ah oo beys noqon kara iyo cadaalad kasta iyo Soomaaliya oo la isku hayo baarlamaankaas ayaa u noqon kara xukuumadda u noqon karta waxa aasaas ah oday waayeel ka ah oo asagu dusha ka ilaaliya qaranka madaxweynaha oo baarlamaanku ay doorteen oo ah ilaaliyaha dastuurka iyo dawladnimada odaga guud ee dawladda haddaba waxa waajib ah in arrimaha maanta dhacay ee gobolka Banaadir oo hadda gobolku markii reerku ay wax karsadaan ay raashin in la cuno la rabo martiya imaanaysa la sooraa kidibna waxa la sooraa haddana dadka adeegayaasha ah kidibna ilmaha guriga la sooraa
odaga wax dhila la siiyaa maamada ugu dambaysa hooyada qofka ugu dambeeya wuxuuna hooyo waay mararka qaarkoodna waa iska qadaaba waxba meeshaba waxaan u malaynaa marka booska hooyadu ay ku jiri jirtaa gobolka banaadir la geeyey asagaa ugu dambeeyey intii kale waa la sooray marka waa hooyadii sabarkii waa sabar badan tahay raashinka iidaa guraysa waa u soo carfa waa baahan tahay mana cunayso intaabanayso ilaa ay ummadda oo dhan ay ka dherjiso markaasay dherega wixii u hareeyey iska xogoonaysaa calaa kulli xaal marka walaalayaal waxaan uga baxayaa runtii baarlamaanka soomaaliya uu jeergaraynayo guddoomiyaha oo aad u mahadsan oo kelimadiisa uu jeediyey baarlamaanka uu ka jeediyey taariikhda ay gashay iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa sheekh maaragtay cabdiweli iyo dee maaragtay dhammaan garbihiisa guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo dhammaan xubnaha baarlamaanka yacni waxay noqotay taariikh waxaad moodaa yacni shay walba in muggiisa lagu beegay dhereg yacni maaragtay suus walba muggiisa lagu beegaa markii xuquuqda gobolka banaadir ay soo gaartay in wax loo dhiciyo oo xaqiisa la bilaabo baarlamaanka soomaaliya iyo guddoonkii oo hoggaan u ah si xamaasadu ku jirto inay xaqa gobolka matalaadda u bilaabaan ayadoo la hubo maqaamkiina inay dhammaystiri doonaan ilaa matalaaddu waa qayb ka mid a maqaamkii qayb ka mid oo lasoo hormartay wey waxay tusinaysaa saddex arrimoodoo waaweyn arrinta koowaad waxa waaye in ay siyaasadda soomaaliya iyo horumarka soomaaliya sida awalba la ogaa oo mixwar u yahay ama tiir dhexaad u yahay baarlamaanka soomaaliya asagu inuu yahay ilaaliyaha xuquuqda iyo dastuurka markii laga fiiriyo xagga sharciga iyo qawaaniinta xagga maamulka dabcan madaxweynaha iyo xukuumadda fulinta ah laakiin ilaaliyaha sharciga iyo wax u qaybiyaha ummadda iyo matalaadda shacabka soomaaliyeed baarlamaanka ku fadhiya markay xaaladdu ay xumaato asaga ayaa aasaas ah asaga ayaa loo imaanaya asagaa wax xalinaya taas waa soo baxday waxaa kaloo soo baxday magaalada muqdisho magaalo soomaaliya oo dhan u danqatay oo soomaalinimo lagu difaacaya inay tahay oo aan qabiil iyo reer lagu ilaalinayn taasna baarlamaanka soomaaliya ayaa muujiyey waana arrin lagu farxay runtii oo qof kasta ay ku farxday soomaali inay tahay caasimad soomaaliyeed oo dhammaanteen nin ku dhashay iyo nin asagoo yar ku koray iyo nin wax ku bartay iyo nin maamulkeeda ka qayb galay kulli wax sida lagu fadhiyo waxaan u malaynaa masraxan waddaniga ah soomaaliya laga soo bilaabo xilligeedii maaragtay uga horey ilaa maanta meesha dadka laga yacni tawjiihinayo halkaanay ahayd magaaladan marka waa magaalo caasimad ah caasimad kastana inta ay qaadato dad ah oo kala duwan iyo sida xadaaraad iyo ummado kala duwan u nooleeyaan oo maamulkeeda weli uga qayb galaan ayaa horumarkeedu ku xiran yahay kullamaa magaalo kastoo reer isku koobana dhulka ayay yeelaysaa waa dhacaysaa waa la yaqaanaa marka waa magaaladiinni sidaad u difaacdeen ood uga codayseen oo guddoomiyuhu hadalkii qiirada lahaayo weliba dadka dhegaysta qaarkood ay la ilmeeyeen oo ugu fura baarlamaanka xubnaha baarlamaankuna ishaarada guddoomiyahooda waa yaqaaniine ay xamaasadii ay uga codeeyeen jazaakum allahu khayran aan leenahay annagu culimmada soomaaliyeed haddaan nahayna aadan ugu faraxsannahay runtii waana soo dhawaynaynaa waxaan uga baxayaa marka wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala aayad kale watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan aayad kale wuxuu ku leeyahay suuratu alanfaal oo aayadaha la yidhaahdo xukunka iyo dowladnimada suuradda ka hadasha waaye walaa tanaasacuu fatafshaluu watadaba riixukum ha iska hor imaanina oo aad fashilantaan oo awooddiinnu ay baabaado waxa waaye iyadoo marxalad kale guura lagu jiro oo la doonaayo in dalku uu barul amaan uu baxo oo la ilaaliyo amniga iyo isku duubnida ummadda waxaan haddaan culummada soomaaliyeed nahay aan ku dardaarmaynaa saddex arrimood oo baarlamaanka sharafteeda aan ugu dardaarmaynaa arrinta koowaad waxa waaye in la dhammaystiro maqaamka gobolka iyo xuquuqdiisa ee sidaad ku bilowdeen soomaalinimada ah ayadoo dastuuriya in la dhammaystiro qodobkaasu qodob muhiima waaye leannahu waxaa la yidhaahdaa hilbaha waxaa la yidhahdaa sadka culummada haddaan laga bixin lama qaybiyo raallina ahaado hilba jacaylna culummada ka maahane waa soomaalidu dhaqan wanaagsan waaye waxay ku ixtiraamayaan diinta marka dowladda soomaaliya inta ku jirta waa ka bixi weysay waxay uga bixi weysay hooyada xuquuqdeediyaa weli ku jirta marka in laga saaraa laga maarmaana intaan la gaarin isbeddelka ee soo socda taas qodob waaye qodobka labaad siyaasiyiinta loolamaayo oo siyaasadda raba waa badan yihiin ama ha noqdaano ragga hadda jooga ama ha noqdaano kuwa horuu joogi jira ama kuwa cusub ha noqdaano baarlamaanka soomaaliya annagoo codka culimmada u gudbinayna waxa aan ka codsanaynaa guddoonku waa fadhiyaa in la ilaaliyo isku haynta soomaalida iyo in si dastuuriya oo qaanuuniya oo midnimo ah looga gudbo marxaladdan oo layska ilaaliyo in maamul goboleedyo iyo reer iyo xisbi in laysu laclaaco dan ummadeed ma aha walaa tanaasacuu fatafshaluu watadaba riixukum aan ku dhacaynaa
soomaaliya dawladda maanta madaxweyne maxamed cabdullaahi oo madaxweynaha ka yahay ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo dawladihii ka horreeyayba dadka xaqooda lama inkiri karo sheekh shariif haddii aan ka soo qabanno sidaan waqti u beeqaamiyo arrimo waaweyn oo qabtay markuu madaxweynaha ahay dadkii la shaqeynayay Jeylaani iyo kaliya waa fadhiyaan xilligaas guddoonka baarlamaanka joogay waxa waaye wuxuu ka saaray dalka kumeelgaarkii baarlamaankii Soomaaliya ama shirkii Soomaalida gudaha ku qabtay argagixisana magaalada waa ka saariyay taariikhda u gashay waa lagu amaanaya xasan sheekh afar maamul goboleed oo dhisay arrin lagu amaano way afar maamul goboleed oo zero oo inta bilaabay oo fariisiyay waa arrin qiimo badan dawladda maxamed cabdullaahi farmaajo markuu yimidna maamul goboleedyadii iyo dawladdii dhexoon isku fiicnayna in badan oo kamid ah tafaahum uu sameeyay oo waa isku soo dhawaadeenoo gudoomiyaashan horteeda fadhiya kamid ah maamuladooda iyo kuwa kale oo maqan waxa naga maqan yahay waxa maqan ambassadorka naga maqan inuu fadhiyahay علي فخي أنا جمعان علي فخي دولة فديلها هاي وابد دمستر على هذا قدومي عمر فليش اللي عيسو فدي أمريكا هرت أفر نمروا وين الله هاي واي لابد كله تنواد وكبر يسين مركا غضب كمهم كان مركا وحوي هاي إن وحكروه هرمر لا جاري اسكت دومني دي هيدا فلنت ودكتين نباتة كجر جفتي هي هرمر بدنوا ماشي عن تاجنا كميت هاي هي وزارة قرشينته وحلا يابل عن قصار النمانته هي إثباتية هي ماله بدن ذلك هرمر بدن أيو جاري وحان مركا لقى مارمانا كرسي إلها قفك أقرأ وفد يسنا قفك عاو مجرو لكن إنس شفافية له أو فن أو بنانك تعالى أو أن تهتون لهين إنه كل هذا قدوميها برلمانك إيه قدومي حقين كيس كوبادي اللباد إيه لما رحنا برلمانكو أيها أمد مسؤولية إنه دور الشدح سيدا أوجو صورة قلة أو أوجو نبض بدن أنك نبض مهم نوع سير بتاعكوت هذا إن دلك اللي وجود بيه مرحلة دان أو اللي وجود بالدولة دجن أو سيد دجن حكم كوكل وريكته أما رجع نوجوجا أورنت وشقب بدن أقبيتها يصير أنه سي وضعنا وجانس كل هذا السياق أما رجع عسوا نوجي مدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمها سيهاي شيخنا شيخ علي وجيز.